وقرن هبي ونكسن مدحوينك مقعد وفارح يمني اس بي سي aan ka tirsan su'aasha ku weydiinaya waxay tahay qorshe noocee ayaad ku hagaysaa 2020ka xukuumadda aad adigu hogaamiye u tahay marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto aan tacsi halkan uga diro nin ummadda Soomaaliyeed qaali ku ah Axmed Kayse oo dhawaan geeriyooday waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo eheladiisii iyo qaraabadiina iyo asxaabtii samar iyo imaan uu ka siiyo haliyeydii midnimada Soomaaliyeed ka soo shaqeysay ayuu ka mid ahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ugu tacsiinaya intaa markaan ka gudbo dabcan dawladdu qorshe guud oo ku salaysan 8 yool iyo 66 hawl shaqo ayay u soo bandhigtay bulshada reer Puntland in ay rabto in ay wax uga qabato muddada 5 sano ah ee xilka hayso qorshahaas bisha 2019 bishii saddexaad ayaa si qorshe dawladeeda loo rogay sanadkii la soo dhaafay sidaas ku shaqeynaysay sanadka 2020 ilaa iyo xilka intuu ka dhamaanay taas ku shaqeynaysaa laakiin waxay u kala jajaban tahay qorshe hawleedyo u kala qaybsami doona si isku dhaf ah sanad walba inta ka qabsoomi doonto saldhigiisana uu yahay in la tayeeyo dhammaan hay'adaha dawladda ee muddada 22 sano jiray dhinac walba laga tayeeyo intii laga gaari karo hadba sanadkaas sidoo kalena la tiigsado qorshayaasha saldhigga u ahaa aasaaskii Puntland ee aan weli la gaarin oo ugu muhiimsan tahay sidii midnimada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ee cagaheeda ugu istaagi lahayd dalkuna midnimadiisa looga shaqeyn lahaa sidoo kalena Puntland in la geliyo nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod intaas ayaa sanadkan waxyaabaha ugu weyn oo lagu tuntunsanayo ayay saldhig u yihiin laakiin qorshe hawleedyadaas waxay isugu jiraan dhammaan 4 qaybood ee xukuumadda la isugu qaybiyey ee dhinaca maaliyadda iyo dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha dhinaca adeegyada iyo kaabayaasha dhinaca amniga iyo dimuqraadiyadda iyo arrimaha ku saabsan iyo qaybta kaleeto oo ku saabsanayd horumarinta arrimaha bulshada sidii wax loo qaado marka qorshayaashaas way qoran yihiin sanadkanna waxaan rajaynaynaa sidii sanadkii 2019 qorshihii sanadkaas uu u wada hirgalay 86% ayaan rajaynaynaa sanadka 20kana qorshayaasha dhigan inay noqdaan in sanadna wada dhameystirmaan iyo intii kale oo laga gaari waayay sanadkii 2019 su'aasha koobaad aragtida dani buugaaga oo 8 yool iyo 66 wax qabad ku xusnaa waxaad aad ugu cadaysay xorriyadda hadalku inay sugnaan doonto dastuurka Puntland qodobkiisa 14aadna wuxuu sugay xorriyadda fikirka qofka inta xukuumadda jirtay waliba toddobaadkan odayaal inta aan ognahay hadlay oo fikirkooda saxaafadda ku soo bandhigayaan maxaa sabab qodobka labaad ee su'aasheeda wasraacsanaya waxa weeye waxaad ka hadashay khudbadaadii caawa musuq maasuqa in musuq maasuq dhacay baad qortay baarlamaankuna bishii toddobaad ee sanadkan waxay sanadkii ay soo dhaafnay waxay sheegeen in musuq maasuq jiro dadkii musuq maasuqaasi geystay waxaad sheegtay xafalna ducama salaf batri wixii hore dambiile aan la ciqaabin oo dambigiisa hore lagu ciqaabay sidee birito uga baaqsan kara inuu dambiga ku laabto ugu dambeyntii kiiskii Caasha Ilyas ragii falka geystay ilaa hadda laguma fulin xukunkii wuxuu fulay xukunkaas su-aasha koowaad ku saabsan waxaa sheegtay dastuurku siduu dhigaayo waa xorriyadda fikirka laakiin dhaleecaynta iyo been abuurka fikir maaha waa fal dambiyeed dadka aan u diraayo halka fariimaha xataa waxaa ka mid ah daljir oo mararka qaarkood baahayso warar been abuura oo xaqiiqo ah ay ka mid tahay waddada ceel daahir masawirro meel yar intaad ka soo qaadeen kiliib ka weynayseen ka dhigteen inay waddadii burburtay shacabkuna maalin walba way muraan dadkuna way la socdaan marka been abuurka iyo beenta iyo dacaayaddu ma aha fikriyad xor ah tan dastuurka uu damaano qaadaya taas maaha faldambiyeedku waxaa u xil saaran hay-adaha laamaha amniga iyo garsoorka marka qof dawladdu ay xirtay si toosa ma jiro laakiin laamaha amniga iyo garsoorka maxkamadaa la mariyaa xeer ilaalin dacwadaa lagu soo ogaa
dad intii dadka xorriyadda laga qaado la iska jeelasha la gelin jira ma aha waa nidaam dimuqraadiya qofkii xadgudbana haddee xabsiyada iyo maxkamadaha iyo waxa loo samaystay dadka xadgudba in lagu qabto marka waan u rajaynayaa dhallinyaradu inay kala barato xorriyadda fakirka iyo brobagandada iyo dacaayadda iyo been abuurka inay kala bartaan haddii kale dee ciqaabtaasay mutaysan doonaan taas intaasaan uga baxaya su-aasha labaad aad ka hadashay musuq maasuqa dabcan waxaad og tahay xukuumaddan xukuumaddii ugu horreysay oo fal musuq maasuq maaliyadeed xukuntay intii puntland jirtay taariikhdaas waa haysaa umaynaa journalistaata annaga ma dhihin dadka hadda jooga galaya ma aha laakiin puntland muddo dheer ayaa nidaam habacsan oo traditional ah oo haddii si loo fiiriyo musuq maasuqa laakiin dadka caadaysteen baa jiri jiray marka waxaan ka hadlaya waxa weeye wixii hore oo la jiri jiray annagu 20kii sano dadkii sidii nidaamkii duruufuhu keeneen baa xukumeena oran mayno waxaan leenahay cafurlahu camaa salaf waa waxaa hore laakiin hadda waa dowlad xisaabtamaysa ciddii xadgudubtana xadkeeda lagu qaadi doono waxa uu sharciga ka qabo ma aha xukuumaddu waxay ka qabto sharcigu wuxuu ka qabo su-aasha saddexaad oo aad ka hadashay kiiska caaisha waad og tahay maxkamad noocaas taariikhda soomaaliya inta la xasuusto kiiska caaisha oo kale meelu ka dhacay ma jirin maxkamad daah furan bulshadu ka qayb gashay meediyaha laga sii daayey cid walba arkaysay saddexdii procedure ay martay maxkamaddii koowaad xukuntay racfaankii uu xukumay maxkamaddii sare go-aan ka qaadatay laakiin waxaan dadweynaha iyo meediyaha barayaa habka dowladnimadu u shaqayso waxyaabaha maxkamadaha go-aan gaaristooda dowladda puntland madaxweynaheedu ma leh dadaa marmar waxay yidhaahdaan xeerka fulinta madaxweynaha saxiixa oo saxaya saas sax ma ah maxkamadaha madaniga ah go-aanada ay qaadaan maxkamadda sare iska leh marka iyadaan u daynaynaa xukuumaddana ma la rabo inay fara gashato waxaan rajaynayaa ciqaabtu xukunka markuu dhaco iyo markuu fulaayo iyadaa taqaan procedure la maraa jira wax hadda ka khaldan oo aan garanaynana ma jirto sidaa ay u soo socotay haddana u socotaa waddadii cadaaladdeena ku socotaa waan rajaynaynaa waddada cadaaladda inay waddadeeda ku socoto haddii khalad ay cadaaladda ka timaado markaas ayaa wixii ila gudboon madaxweyne ahaan aan arki doonaa waxaan u malaynaa saddexdaas su-aalood baa weydiisay waana mahadsanta